الحمد لله إلهي بانكو حمدنا إنك سو قيب قليي كل كادينات إن دينتنا معانا سو براروجنا ونسواننا ونسكو نستيحينا واتان إلهي أقول دوانينا كل جنويان إذا صلاة المغرب مركاتو كني كل جان waxaa laynoo jeediyey wacdi dhammaystiran wacdigaasi muxuu ahaa waa janaazadii aan ku tukanay weeyaan kafaa bilmowti waacida qofka waana waxaa ugu filan waa geerida dad dhalinyar intaa la eg qaarkeen ay xafadata kitaab illaahi ay yihiin qaar culamo ayna la joogaan qaar ducaada ayna la joogaanna janaasadaasi ilaahay waa waafajiyey inay ku tukadaan khayr badanna waan u rajaynaynaa nabigeena calayhi salaatu wassalaam maalin maalmaha ka mid a janaaza la hormariyey markaabay saxaabadu janaasadii bay khayr ku ammaaneen markaabuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi way waajibtay markaasaa haddana janaaso kalea nabiga la hormariyey tiina shar baa lagu sheegay shar oo naf xun oo acmaal xun ka shaqaynaysa inay ahayd baa nabiga hortiisa lagu sheegay markaabuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wajabat waa u waajibtay saxaabadu waxay yidhahdeen cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa yidhi maa wajabat nebi allow maxaa waajibay bal noo sheeg janaasadii horena khayr baad ku sheegteen buu nebigu yidhi janna u waajibtay buu yidhi janaasadii dambena shar baad ku sheegteen oo ayadana naar baa u waajibtay ininkuna markhaatiyowgii ilaahay arlada dusheeda u joogay baa tihiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam marka dadkaas masaajidka soo camiray inay wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo baraarujinta ay dhegaystaan u yimiday ayaa ilaahay waafajiyey janaasada inay haddana salaadeedii ay ku tukadaan waxaan u rajaynaynaa insha allah qofkaas inuu yahay ahlal khayr insha allah dhahada eheladeenna waxay naga dhinteena ilaahay waxaan uga baryanaa iyakana inuu qabuurahooga u nuuriyo uu cadaabalqabrigana ilaahay ka badbaadiyo innakana ilaahay khaatimada inoo hagaajiyo ilaahay casa wajalla cibaadadiisuu adduunyadan inoo keentay addoonkuna rabbigiisa laba unbuu ku caabudaa mid saddexaad ma leh laba shay haddii cibaadadeenna laga arko cibaadadaasi insha allah waxay noqonaysaa maqbuula al-ikhlaas cibaadada aada cibaadaysanaysid waa inay kaa noqotaa ilaahay dartii haddaad salaad tukan iyo haddaad soomi iyo haddaad qur-aan akhrisan iyo haddaad ummad wax u sheegi iyo haddaad diin baran iyo haddaad diin bari iyo haddaad dhaqaalahaaga diin ku bixin iyo haddii maaragtaan ummadaada aada waqtigaaga ku bixinba waa inay cibaadadu kaa ahaataa alla dartii wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaas camalka qabuulkiisu waxaa asaas u ah ikhlaas camalka labaad ee la doonaya acmaasheenna inaan ku qabanana waa maxay almutaabaca inaan ku qabano dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wassalaam ikhlaasku waa laa ilaaha ila allah mutaabacaduna waxa weeyaan waa muxamadun rasuulullah ikhlaasku waxa weeyaan maaragtaanay waa towxiidkii waa laa ilaaha ila allah waa iimaankii mutaabacaduna waxa weeyaan waa cilmigii weeyaan ikhlaasku waa ka ruux weeyaan mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa kal jasad weeyaan sida ruuxda iyo jasadku u kala maarmaynin ee mar walba labada iskugu baahan yihiin ayaa cibaadadeennuna labadaasa asaas u ah laba shayna waa hadaf weeyaan hadaf inuu addoonku mar walba labadaa u isordhigaa khawfan wa tamaca haddaad cibaadaysanaysid labadaa ilaahay waa inaad ku caabudaa cabsi iyo maaragtaane tamac rajo aada ilaahay naxariistiisa aada rajaynaysid muuminiinta muttaqiinta ilaahay markuu ammaanayuu sifaadkooga ka sheekeynayay
وكيل هاي كو أماني لها هبينك دينا عوغو جيفك كمرة قبا إلى هاي يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع هبينك هل كدتك كلا أي جيفان أيا إلهي أضومه سو هبينك جيفك كمرة قاني إن ير إنتي سيحدان بي مركز دنبانا عبادة يطاعد يبريد الله أسوك عان عبادة أي عابد يان إلهينا وحا أساسؤه خوفا وطمعا إلهي بي كعب سنيان عردي سأي كعب سنيان طمعا إلهي ويكو عابد يانو نحريست إلهي جنة أي ككوتهي بالرجين يان ومما رزقناهم ينفقون با إلهي لوحا كو أرزقنا ويبحنا يان مالكوغا هدي لغا دلبو دينتا كو بخيا ليرادنا ويكو بحنا يان ديعانكوغا هدي ليرا دينتا إلهي كو بخيا ويكو بحنا يان عقلكوغا علمكوغا هدي ليرا إلهي درتي وبحينا وبحنا يان وحي أن نعمد أن كو أرزقنينا ويبحنا يان با إلهي تبارك وتعالى marka labada sifo waa laba sifo oo la doonayo qof kasta oo muumina mar walba qalbigiisa inay ku jirtaa khawf ilaahi azza wa jalla ka cabso oo nabigeena Muhammad alayhi salatu wassalam wakilaha qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadukum bi'amalihi qila wala anta ya rasul Allah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam عملكينا ابو نبي ولا حريريا وعملك صالحا هكلا غوين وسددوا توصيه ابو نبي ولا عملكينا وعملكينا وحا كتوسيسان طريقه النبي عليه الصلاه والسلام طريقه رسولكنا كتوسيا وعملك حدو سنه نبيغا او خلافو غرمرو عملكاس الهي اقبل مايو marka amarka in la xiriiriyana waa amar weeyaan ma ahin marna tuko marna daa marna soom marna daa marna masaajida ku soo xidhno marna ka baxmaaha waxa la doonayaa ad-dawaam ahabbu al-a'maali ila Allah adwamuha wa in qalla ilaahi agtiisa amalka loo jecel yahay waa amalka uu adoonku uu daa'imo walow amalkaasi haba yaraade marka buu nabigu leeyahay qaaribu xiriiriya buu nabigu leeyahay amalkiina wasaddiduna toosiya wa amalkiina waxaad ku toosisaan thawaabka ku toosiya ittibaaca nabiga alayhi salatu wasalaam ilaahay ku caabuda واعلموا أوغادا بو نبي قولي إنو سلمتكينا عمل كيسا كسكن نبت قلينين قيل ولا أنت يا رسول الله يا رسول الله كولي أذيك النقطنا مياه مركابو نبي قولي ولو أنيقا نحن نقطي عمل كيكا تكون نبت قليسا إسعراني مايه نحريست إلهي بان يا إنا كن نبت قلب رسول كيولي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيام ما ركتاني سدا وعبسوناي habeenada kamida nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu qiyaam leelkii u kacay aayadahan ugu dambeeyay suuratu al-imran baa nabigeena ku soo dagay aayadahaasi waxay cadeynayaan ilaahay cadamadiisa ay bayaaminayaan bilal baa markaa nabiga u yimiday markaa buu yaa rasuulullah salaadii baa lagu sugayaa ee soo kac markaas bilal wuxuu nabiga indhihiisaan fiiriyay ilinta nabiga ka daaday ishiisa meeshuu nabigu ku sujuudayay ilintu qoysay markaasuu yaa bilaal xalaytoo aayadahan quraanka ayaa dushayda ku soo dagay waylun liman qara'aha wa lam yatadabbar waxa hoogay oo khasaare buu nabigu yiri aayadaha quraanka ninka akhristay ee tadabburi waaye tafakkur iyo cibro ka dhex ku cibro qaadan waayay kaasa khasaare buu nabigu yiri alayhi salatu wassalaam inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حبسي بو نبينا إلهي كعبدا يا حبسي عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء حديء وعبسوني وليه عمل كيغا كتلقى مايو لكن حريست إلهي ما كتلقى إمام الأنبياء دعاديس ugu badnayd ee nabigeena laga wariyo ku ducaysanaya waxay ahayd ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik allaha qulubta bin aadanka gagadinayo ilaahu qalbigaaga xaq ku sug hadii ducada nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ay ahayd ducooyinka ugu badan ee nabigeena uu ku ducaystay ducadana waa la wariyay iyo ducadana allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
ودعوينك أقبضا النبي جانا عرب كيس كسو نقنقونيسي إمام الأنبياء نبي الله محمد